haddaad hawiyatiina caawa wajigiina dhabtaa bannaanka keenteen digil iyo miriflo waa kusoo duushan been alla caay ma igu bilowday aniga baraha bulshada digil iyo miriflo ka difaacadna waad ogtahay ilaahayna waa ogyahay maxaa kale waraalo aad iyo aad laakiin waxaa dhacaya caawa ka waran waxaa ku darsanaysa hadda maya hadda hawiyo dhan maaha laakiin iyo siyaasiyiinta hawiye caawa waxba uma harin qayb qof ma ha kuwaas dheh laakiin hawiyo dhan dee xoogaa aadanow maya laakiin hawiye siyaasiyiintiisii iyo odayaashiisoo dhanaa fadhiye aniga fiiri aadanow hore waxaan kuugu sheegay buura kab inaan ku dhashay weligay ama iga maqasho buura kab aan leeyahay ma iga maqasho aniga shacab lama hadlin laakiin waxaan dhahay siyaasiyiinta hawiye iyo odayaasha hawiye cawada waxay u midaysan in la dagaalka digli miriflan ku dhahay laakiin shacab ma ku dhig waa qaldan yihiin mana ku dheefayaan waxna ma ka qaadi karaan sababta maasha Allah digir iyo mirifle maanta iyo inta la socotaba waa dad hubaysan hawiye wuxuu noqonayaa maxaan ku tilmaamo wuxuu noqonayaa dabayl bidoon noqonaa runta naftiida oo nimankan siyaasiyiinta isku tilmaamo oo waxaan dad kale rabaan goboladooda inay u taliyaan ama qabsadaan nin walba gobol uu ka yimid gobolkiisa ha xarxaarto wax ka wanaagsan malahantaas xildhibaanadii qaranka Soomaaliyeed oo ka soo jeeday Maryland xasaanada ka qaad hawiye inay dhahaan xildhibaanadooda isu tagaan iyo saraakiishooda aadan madoobe lagu handada taasi ka waran haddaadan ka qaadin adaa u dhimanayo waa khalad waa maqlay si fiican hadda ugu jawaabay aadan madoobe maasha Allah waaba dadaalaba haduu intaas caawa keenaybo maasha Allah aan leenahay waxa way walaalkayo waxa way digir iyo mirifle iyo aniga runtii Cabdishakuur waxaan dhilaa ninka wiilka la yiraahdo Cabdi wiilka hadda koors ku soo sharaxay Cabdinuur meelada waxaan ku kulanay meelahan oo Twitter-kan ku kulanay hadda koor xataa su'aalooyin waa weydiiyay runtii waa qof wanaagsan oo degan kow markii la doortay uu soo sharaxay gudoomiyaha xataa aniga waa la jiray runtii daarabto waa jeclaa inuu asagu ku soo baxo laakiin ma dhicin sama qadar Allah ku dhacday laakiin taano hawiye siyaasiyiin isku sheega hawiye aade oo maanta xasan umaleeyay inay baalashooda ku buubayo hawla sugaysa walaalo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo hawiye ah oo dhaliilay Xasan Sheekh Maxamuud jagada ilaa hadda laga ma qaadin Cabdirashiid Jilay oo macnii la dareen noqday dadkiisii in Xasan oo caaw jagada ka qaado maxaad u aragtaa erganimada qabyaalad Soomaaliya waa dictatornimo iyo qabyaalada dictator iyo qabyaalad wuxuu shalay sheegay asagaaba hadaladii shalay uu ku hadlaayay markuu banaanka taagnaa 5 sano oo macaabka hadaladii afkiisa ka soo baxay wuxuu ku hadlaayay waa ninkii dhahayay nin ka tago wadanka oo wadan kale aado waxa jira dawladiisa ayaa saan yeeshay oo madaxweyne saas u dhahayay maanta asaga yeelay Soomaaliya asaga kuma shalay uu ka carray marka abo anaga wax kasta anaga u jeedno oo ogaan ku runtii dadka miirka qabo oo daacad oo wadanimada daacad oo runtii oo dalkan u jeedo waxa uu meerka u maray shalayna uu maray maantana uu marayo waa loo wada jeeda in adeero hawiye kuwa isku sheegay siyaasiyiin iyo odayaashooda isku dar kala ma reebaye 34 sano dadkii barbariyo Soomaaliya ilaa hadda maanta ay ka dhaqaaqi lahayd waa iyaga xaqiiqada markii la rabo runtii la isu sheegaa waajiba maxay u qaban waayeen siyaad bar markuu ka tagay wadanka uu ka cararay uu ka tagay maxay dalka ugu qaban waayeen hoggaanka u qaban waayeen meeshii isdhaayeen siyaad barra iskala dhulkan ma lahayn siyaad barra uu dhisay wax kasta uu dhisay mid kalena waa rabay inaan ku darsado arrintan hadda soo baxday oo Fahad Yaasiin iyo Farmaajo ku taagan aniga waa la socdaa runtii qasada laftigeeda waa la socday waa okay Farmaajo si fiican u yaalo waxa waa qofka bilow aadanka waxa waaye waa inuu moocid leeyahay waa inuu leeyahay qowl waa inuu jid leeyahay laakiin waxaan rabaa roob maxal dhijir qayr baale ayaa rabaa inaan madaxweyne asagana aan soo sharaxno laa yanfax way qayr baale waa la ogaa shalay wadanka meel uu geeyay runtii in la isu sheegaa fiican marka walaalow taasna waa ku maadsanta waa la socday aad ugu maadsanta aadana assalaamu calaykum aad iyo aad bay u maadsantahay walaasheena Hindo Cosoble waa gabar hawiye ah oo habar gidir ah oo ma arkaysa laakiin runta macnii aad iyo aad aan ka gamban oo banaanka soo dhigta wixii xaqiiqooyina digil iyo mirifle iyo hawiye way isgaleen wixii la sheegi jiray been waa dhalanay Shamsa Xuseen soo dhaw gabar hawiye noogu jirta labaad Shamsa awada in
أنا هوي مي معن لغاية معن آذنو أنا هوي مي دارض مي ما يلسه معنا هاي وايه عوضة إن هوية سياسيين تودا سيدان أي أميدوبان ديجل أو مرفلة سراكيش تودا يسياسيين تودا يضيعش تودا أي كلهان قدومي آدم مدوب وكدلينا هديك له ما أركيس حساناتك قاطع الديوان هذا ميلان أو تردو أنت سيجاريسا محي كديجنتاي مع الآذن هرت مركو جوري سواك السلامة يعني ما أنت مرأة هاد لا عدكي جو يا أم لينا هاد عدكي نظيف مياه والنظيف وسيدي لوبهنا هرت أمد الصوماليات والله يفك كجرت أمانتود وحلاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل يبقى ضد كان وحواي حق يبادلك إلهي قرآنك وكل صاري ضدك قلبا ضدك صحنا والك اليقانا أرنتان وأبتهي إن عيب ليدي قبل ما أنت دولة ليدي سوق هذا أو ماشان دولة نما أين نجرين لكن معلن آذن وحنكون شيء هوية ووين هي هوية وبدن هي هوية ضد شرف لها كجرو ما في يدي حسن شغل شقي سنة سوا ضدك أو سوء استاجي مالها إذا عدها أو له هضلة حتى كون علوم شاغنا حتى وحيره هضلة ما أنت هون كابل إيو وحي لما إذا عديه دن وحده يا هضلة ضدك مضبالة أديك بشري إثيوبيا أماني سبي أو ده إثيوبيا أبنيها كود شقينينا نبتكلينا كود شقينينا أصل حسنها ده أصلا كي هذا ما نوحي قاب أو هشيس أو كوجلي أو محيط اللي يرديني بابيني سيعيدا كيني يا بنت لو شيء مركز حسانة اللي قاعدة غير كونفور البيت أحمد مدوبة أو مجرم أو طبعاً شنصر ماشي جوجو أو واحد لو يحور بعسقي اللي بعني دي شيء جايين ما هذا وحكون فرح سنة ويل كان هذا إرجع اللي قاعدة والله نكر ميضا إيدي صوبحي ما شاء الله تبارك الله إن أو يري ما أنت عبسي كما قبو يري كونفر قلبيت سيدو ويري أنه بحاولها والله يقاهر كونفر قلبيت واسكو تشتين إذن اللي يقاني استين أو إزدفاع أديان مركا دقال لقولا قادي هذا الكاسي كحناقين إدان جروب أوف مافيا دولة ما بقى هني جروب أوف مافيا قف كسو هذا اليوم فكر كود كسو رجوست مجعلو marka waxay ka baqayaan miya in digil aw mirifle sarkuusta maamulkooda ay soo istaagaan oo wixii xamar ka baxayeen ay kontroolaan isbaarooyinka ay ka soo qaadaan cabsidaas ay qabaan miya macali aadano waxa u maleynaa en lafta garan waana dhageysanayaa madaxweyne lafta garan waana dhageysanayaa war meeshaan waa u jeedin ciibkii colaada leedii qabe aniga mko saacadaan laga bilaabo waxaan ahay digil mirifla ahay waxa ahay koonfur galbeed ahay aniga waa tahay cid ku diidi karta male anaaba ku soo geliyay way dhageysa waxaan ku sheegaa Ethiopian inaad soo wadatiin oo afgooya maanta dhiiqa iyo dadka waa lagu dacaayadeynaaye meeshaan la dayactiro sida oo baydhabo loo qurxiyo waa iri tuuga lafta gareen ha ka dhabeeyo Ethiopian intuu soo gado wallahi kuwan oo hawiyaha ku qaraabinayo beenta sheega wallahi billahi gaaji inay dilaysaa ku dhac meelay maraan weynayaan oo toos loo kala baxaayo waa cadaysteen nimankan magacooyadooda waa cadaysteen sheekadana waa sheekadii 91kii oo la yidhi dhibaateynay reer koonfur galbeed la dhibaateynay marka maantay waa la idiga masiirsan yahay wallahi oo billahi oo tala inaana been sheegeen anoo xaq ka hadlaayo maantay Soomaaliya maamul goboleedyada ka jira maamulka meeshooda loo dalxiis tagi karo laamiyo qurxan ka dhisan yihiin madaxtooyo qurxan ka dhisan tahay ee la boor qurx asagii madaxweynenimada sheeganayay oo hantidii qaranka liqay dhulka uu ka soo jeedo ma dhisno hal far ma ka dhisna hal far kulli buul waatay dab iskaga qabtaan iska gubaan واي فهمت أملينا أديت شمسوي ممودا مركا إسباردي لفتا جرين ودهاي روبلي رئيس الوزراء إسبارو ربا إنو نودكتو وانين هوية معني أنا يكلي أنا لقول لقي لبعتن جربان كودي دي كتر ما أقولي إسباردي مد لم يدا هدنا إنا يتالبس أنا كديب سوما موقتا هدي قدون كي بارلمان قدون يسلو تقول لي ستيت كمايلان حل دبانا دي ساحة ساند لك قاضية أديك فيري معلن أدرو نك هذا رئيس الوزراء اللي له لغة دارله أو واحد وقبته أو نجرب صاباسبور إثيوبيان ما هو إثيوبيا كم تلني ها إثيوبيان وا هاي ما لقى قاضي حلكة حاسس شيء قنب تركيسة أهدو دور باسبور إثيوبيان وطو
oo dhooy dalka madaxweyne ka ahay dhooy mase baasaboor Kenyaati labadaas mid uu wataa Kenyaati wataa haye markay reer gadama wixii diyaaradaha lagu garaacay hal maalin ay ka hadleen maalin kama hadlin maalin ma ka hadlin marka waxa waaye sheekadaaneti waa la kala baxaa hadda toosa loo kala baxaa waaye hawiye ma cadaysteen marka siyaasiyiintooda iyo ma arkaysa odayaashooda ma cadaysteen mise ma cadaysanin in ay u midaysan yihiin dagaalka digil aw mirifle ma cad yahay warka waa cad yahay warkaas biyana ma ismarin warkaas waa cad yahay waadax waay warkaas reer koonfur galbeed mudaharaad cir iyo dhula baydhabo waajid xudur adduunka dhammaan inay soo qaataan ay xasan sheekh iyo kulligood istilaab ay saaraan hadhahaan qaa'in waaye qabiiliista waaye tuug waaye hadhahaan biri rabitaankooda ha muujiyaan wallaahi oo bilaahi waxaa la rabaa sidii cagabararkii iyo gaajadii in loo celiyaa la rabaa ee ayaga ay gumaystaan ay rabaan meeqa maamul goboleeda dalka ka dhisan ma lala diriro maxaa laga rabaa dadka reer koonfur galbeed bal adiga aan kugu celiye waxa laga raba ma ii sheegi kartaa marka maxay dadkan rabaan waxa laga raba waxa waaye dhulkaas webiyada oo barwaaqada oo dooga iyo buurha kabo iyo quruxdaaseti ay waxay rabaan dhulkaas dhisan ay ka masiirsan yihiin dhulkooda ma dhisno joohartii aad arki jirtay oo la dhihi jiray adduunye jooharka joog aakhirana janno ka joog la dhihi jiray dhiiqay ka dhigeen ayaga si u yaalinay meel kasta u taalaa munaafiqiin aanan ilaahay aqoonin oo rasuulkiisa aanan aqoonin oo hantidii qaranka cunay oo dawladnimo aanan waxba ka aqoonin waay tuugta kala jirin والله بالله بريت لابها قادم لفت قرين إثيوبيان أنتو صاوضوا هكذا ماشى أو سرقوسا كانوا أنت حتى جزيرة جيسة حقد أولادهين حرت الوكيل دم كيس وأنا سجودك توكت لفت قرين هلا صاحرو محكمة هلا صار هنلا توكتك ورن خاين الوطن واي إثيوبيا تاعي هير شلي هيران فيريا وحكون شيء إني هرتو قائنين أيين وكون شيء منافقين أيين شل مركي أو علي جيتي أو جويستي أو صومالد القرب يستاكتي أو أرجع حسدي اللي درر واي أنا درر أو يعني صومالد القرب يستاكتي مركي أي وحي شيء أديك أو علي جيتي وحلا دقال سنين كان لي على جود لا وحيدا نتقانا علي جيتي وحيري عركنا وحيريها دولكنا وحيريها من هيرش بالك صعدو ما كسر دقيقة قرونك البورك أو وقاس قريب ما كسر دقيقة محيدا نتقانا كل يوم تسقط أفواي هل سوحر علي جيتي أيه عوضنا فرماجي فهد نكي عاد أوجد أو فهد وفرماجي كعليناي أي ساد وجد ولد دران أي كرسي سحر اللي بعد نمدو وديدا عوض هذا يقرب وضع سيان عجيب مركا معلن آدنو لفت قران طلاب شرعي هقاضو والله أنا قلنا حاسة شيء قصة أبكي سكيري فرماجة إذا لقى عرها شيء لو عرويري ما أنت حاسة شيء قصة لقى عرها شيء اللي قلها إثيوبيا إيه عدو كستا حاسة شيء قصة كعدو سن أنا هذا هاي عدو مدحوين وياهي نمجي وايه حقو كرسي كو يمد هير هبل وكسو كوري إثيوبيا معني هذا معني أي خائنين أي نوغا دغايان كو راعي ما arkaysa macni iyagu waxay Ethiopian ku sameeyaan iyo waxay iyagu sameeyaan yaa daran yaa dadka kufsada yaa isbaara dhigta ayaga daran waxay iyaga suubiyaan kaale waxaan ku weydiinaa macal aadano gabre markuu madaxtooyada calanka ka taagnay oo farta wax ugu fiiqi jiray oo dhihi jiray bistoolada oo madaxa uga wadahay ilmihii oo dhalay waxa wada caaytamaayo oo ku dhahay Ethiopian ma rabno ayaga Ethiopianka ayaa ku dhahay Ethiopian ma rabno gabre meeqa ilmo u dhalay iyo ninkii la dhahay mihiige oo ugaadhayska ahay soo tii gabdho loo geynay meeqa sano u joogay ilmo loo dhalaayay ilmihii waa wada qaan gaareen 18 sano 20 sano wada jiraan wada waxa la waay aniga ma wixii baan noo sheegayaan aad bay u mahadsan tahay ma arkaysa Shamsi Xuseen ay ahayd oo studio warbaahinta Southern Media Corporation inoogu waramaysa xaajada meel sare gaadhay waxa weeye dalkan wuxuu la dhismi waayay xaqiiqada banaanka ay soo baxday cawada laakiin war Cabdirashiid Jilay digil aw miriflow ma saarateen profiilada mise ma ogolidiin war Cabdirashiid Jilay ma saarateen sawirkiisii war ninkaasi macnaheedu bari waxaan rabnaa meel walba inaan ku aragno meel ilaahay keeno